isla wararka muslimiinta Mareykanka la xiriira ayaan ku guda jirnay nin Mareykana oo dhawaan qaatay diinta Islaamka in yar uun ka hor intii aanay isguursan haweeney ka soo jeeda bariga Afrika ayaa waxa uu ka hadlay bisha Ramadaan oo markii ugu horeysay uu soomay. bisha Ramadaan ayaa ninkan iyo xaaskiisa waxay ugu dhalatay iyagoo markaas uun ka soo noqday 7 baxoodii. Betty Ayub ayaa warbixintan soo dirtay. Maxamed Cabdi Xasan ayaa soo jeedinaya. qoyskani waxa uu ku nool yahay duleedka magaalada Washington DC iyagoo isku cusub ayaa bisha Ramadaan ay u soo gashay. waa Ramadaantii ugu horeysay ee Jeremy uu soomo maadaama uu dhawaan diinta soo galay. waxa uu ka hadlayaa xilligii uu Islaamka qaatay. waxaan diinta Islaamka qaatay 3 bilood ka hor. waddo dheer ayaanu soo maray. waxaan ku dhashay oo ku barbaaray diinta Masiixiga waxaanay noqotay inaan Islaamka barto. hase yeeshee macallinkayga ugu wanaagsani waxa uu ahaa xaaskayga iyo qoyskeeda ayuu yidhi. Aryaam Maxamed waa xaaska Jeremy. waxaan soomi jiray ilaa iyo markii aan yaraa. markaa qofka hadda uun soo galay aad ayaan u bogaadinayaa. wax sahlan ma ahan. Jeremy ayaa ka hadlaya waxyaabihii ugu adkaa ee uu la kulmay. wixii igu adkaa waxa uu ahaa bedelashada diinta ilaa aan soo gaadho heer kalsooni buuxda aan ku qaado xidhiidhkeenna. markaas kadibna aan reerkayga u sheegay. si wanaagsan bay iga oggolaadeen maxaa yeelay Aryaam ayay jeclaadeen ayuu yidhi. Jeremy waxa uu diinta Islaamka soo galay bishii March 17keedii waxaana shahaadada loogu qabtay xarunta bulshada muslimiinta ee gobolka Maryland. warbixin ay samaysay xarunta cilmi baadhista Pew ayaa waxa lagu ogaaday in 9% dadka Mareykanka ay diinta Islaamka u qaataan marka ay qof muslina guursadaan. Aryaam Maxamed ayaa ka hadlaysa sidii ay Jeremy diinta ugu soo bandhigtay. in aad qof ku tiraahdo diin kala qaado wax weyn bay igu tahay aniga. markii arrintu ay reerkiisa gaartay mid cabsi weyn leh bay ahayd. laakiinse sida isaguba uu u sheegay way ina taageereen. waxayna arkeen in uu gacmo aamin ah ku jiro. Jeremy xaas hore ayaa ka dhimatay markii uu cudurka kansarku ku dhacay. waxay isu dhaleen wiil yar oo lagu magacaabo Jeremiah oo hadda aabihii la socda. labadayada un baan ahayn. markii aan Aryaam la kulmayna waan gartay inay qof gaara tahay. weli qof iyada la mid ah ma arag ayuu yidhi. in bil buuxda la soomayo ma ahayn waxuu Jeremy hore uga sii fikray. hase yeeshee hadduu ay bishii gebageba tahay soonku qoyskan wuu u fududaaday. Aryaam Maxamed ayaa sheegtay in iyada soonku una dhibaynin. wax sidaas u sii dhib badan ma ahan oo la yidhaahdo ciiddii ayaa soo dhow. imise cishaa ka hartay kalandarka maalmihii la soo dhaafay kama tirtiro. Jeremy ayaase sheegay in isagu uu kalandarka isha ku hayo. hase yeeshee Jeremiah wiilkiisa yar ee 10 jirka ahi ma sooman yahay. maya anigu Ramadaanta kama qayb qaadanaya ayuu yidhi. Aryaam Maxamed ayaa ka hadashay mustaqbalka wiilka yar. waxay sheegteen in kastoo Jeremiah uu hadda guri muslina ku korayo iyadana hooyo ugu yeera ilaa wixii guurka ka dambeeyey. haddana waxay iyadii ninkeedaba isku raaceen in Jeremiah loo dahayo inuu doorto diinta uu isagu doono oo markaa haddii uu doonayo uu soomo amaba uuna soomin.